السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن ونكسن دمان برشاد الصوماليات داوديان كسر دواد برنامج عصب إسلام مركان برنامج جدا إني سؤالها وبرنامج لما قاعد بحي سؤالها وقار كشخصيات تعان أنا جو سؤال قرنا وحياب الله جاي يابين تسوي دين سال ما أنت وحيلة شوجا أبوان ديق مروتشيو أو كم إذا ما تشاتش لا يستياشة أبوان ده قبل تقدر مونا ضوء ديق وكفر حسن برنامج كان نقطة في كوادر لو كفر كسر برنامج أضل ما سنتي وريدون عربيت كل ده ولا أنا أضل ما سنتي وبرنامج كسؤالها قارهان سؤالها شخصيات كعانك دقيقة ما كل حلنت برنامج كان وليه هرموضة سؤالها يضو مدحوينه والله كل من هذه خانتي أضل ما سنتي ما أنت سؤال بنكويدين يعني دقيقة واحد هاي متشاتش اللي حوق برعاي جيجة الصومالي دي جانا الصومالي ده كعانة يمكن عدانكم أقول من بنفيليا دقيقة سؤال بنكويدين يعني سؤال شو كويدين يا واحد waxaan doonayaa 10 eray oo kamid ah falcelinta riwaayadaha kaaga yimaado marka suuqa marayso ay bulshadu ku dhahaan salaad riwaayadaha mid sheeriyada ku jira 10 kamid ah iyo sababaha ay ku yimaadeen bulshada maanta in la wadaagtaan doonaya niyo horta waxa kamid ah eray badan baa soo noqnoqda waxa kamid ah riwaayada photographerka kale san quran haya san quran haya eraygaas kale igu soo noqda eraygaas muxuu ku baxaa eraygaas wuxuu ku baxay gabadhii la sawirayay kamarada suntiga ka soo dhawaatay magta erayada kale igu soo noqdo waxa weeye in reer magaalada iska dhaashta in reer magaalada iska dhaashta way taasoo ugu daro maxay taasoo war wad diyaanada la yacsaynay weey waxa kale oo kamid ah riwaayada laba galaan oo xayda taas maxay ku baxda iyadana inaan baan siriday u geeyo filmsan hadiyad baan siriday u geeyo laba galaan u geeyo oo xayda waxa kamid ah adigu erayadu way farbadan yihiin waxa kamid ah sidii nin naagtiisu aragtay igu soo celiyo maalin dhaweyd riwaayad ugu dambeysay waxaan filayaa deeqo aan ka dhaxgalay riwaayadaas waxa riwaayad ugu dambeysay inta ugu badan saameynta yeelatay runtii riwaayadaas waa riwaayad shakhsi ahaaneed riwaayada waan daawada waa riwaayada ugu saameynta badan bal maxaad ku keentay in yar hadaan dul istaagno sidii nin naagtiisu aragtay igu soo celiyo injineer taniyo nin gabadhiisina arkayso naag kalena la hadlayso xasan waad ka garanaysaa kawdhi adii qudhaado hadii gabadhiina ku dul taagan tahay gabadhna kula soo hadlayso injineer baad ka dhigtay markaa injineer baad sheegaysaa wasiir badan gabadhu fahmin baa la doonaya magta dadana iskaba isbaheed marka eraya fara badan baa kamid ah erayadaas oo dhan baa kamid ah aad mahadsantahay su'aal labaad baan toddobaadkan barnaamijkeena shakhsiyaadka caanka ah oo adiga lagu furay anoo aad ugu faraxsanahay aan kugu weydiinaya su'aashan deeqo ku weydiinaya waxay tahay reeb racaan waxay ku yihiin magac bixinta eray bixinta bal magacyada xaafadaha ay u bixiyeen kugu qosolka badan ama kugu la yaabka badan leh xaafadaha burco iyo sababaha ay ku bixeen bal maanta dadka Soomaalida aynu wax la wadaagno ونيو وارنا هرتين أربعين تراب عاد بيجوا هرين أنا مقعد حافظة يجي يبي وحكم ذا حافظ السيق ورعوها سوق ذاتي سيق ورعوها سوق ذاتي برعي كميت وحكم ذا إلى هو الناركته حافظ لي وحكم ذا نفقه تورت التروة تورت التروة وحكم ذا سمري إيمان waxaa kamid ah sibaqti saxaraha sahlan waxaa kamid ah kaama horeyso waxaa kamid ah cuqubo qunyar dega xaafado far badan oo magacyadooda iga yaabiyeen way xaafadaha dadku magacyadooda qaar way ku qoslayaan bal haddaynu tusaale ka qaadano samiriye iimaan oo kale maxay ku baxday imid samiriye iimaan waxay ku baxday xabaalaha u dhow dabeetana midadku ma sii dhaafeen mar walba samiriye iimaan ilaahay naga sii dadka la dhaafinayo inay samiriye iimaan ilaahay naga sii marka mar walba geeri baa dhaaftay iyo damayd baa sii arkeen subax walba uu samiriye iimaan sababta saalu ku bixi samiriye iimaan way xaqo kale waxa u dhow sarbadi weyneed baa u dhow moogta dadna qofkii hilibka walaga nafaqaysanaya xaafadda imka si quracada soo qadatin magacaad ka dareemaysaa waxa weeye way fogta fogaan baa lagu bixin marka subaxii si quracato qadada ku tala gelmis ana ka soo toosa waa ka soo toosa si quraca soo qadatin si waqti oo kale laga yimaado iyo si waqti oo kale marka xaafadda laga yimaado erey bixinta waxa kamid ah garhka oo kale garhka dadka soo baxa ninka garhku intan ka soo baxo waxay u yaqaanaan garhka halkan maxaa loo yaqaanaa maxaan cunaa halkan guriga ka soo baxa garhka weyn ee hamashka ee wadaadada waxay u yaqaanaan allahumma salli bakhaari dhiibo garhka labadan ka soo baxay u yaqaanaan garh miskiinle labadaa qura ka soo baxa yar yar dhuuban intaa ka soo baxa maarta waxa loo yaqaanaa barista caleeye garhkaagaasoo kale intaa magaraysaa
waxay u yaqaanaan macaamadda iga kacday ilaa waan gartay deeqo kaaga kale maxaa loo yaqaanaa kaygaasoo kale inuu naga xishoodniyo kayganoo kale gadh caadiya naga xishooda loo yaqaan aad u mahadsan tahay runtii aniga bulshada waad naga qoslisay toddobaadka barnaamijka deeq adaanu kugu furna marka laga yimaado su-aalahan ku weydiinayo maxaad bulshada maanta halkan u raacin lahay bulshada waxaan u raacinayaa hees ama hawraar niyow horta wadinkii heesaha bedela wadinkii gu yaqaanay macallimka xaysiisadii bay maraysa maxay sida xitaa bedeshay ma maqashay heestii sida hooyo ehelkaaga iyo qoyskaaga shuban uga dawoobaan anigii maxaa kala warrabay aakhira u dirta heesta maxaa tiri deeqo u dirayna dhawaan baa loo diraya sida hooyo hablahaagan buurbuuran ragga uga badbaadaan qofna la ogow halkaasaynu ugu soo joojinaynaa maanta aad buu mahadsan yahay awaandeeq marajiye daawadayaal waxaanu ku furnay barnaamijkeennii su-aalaha shakhsiyaadka gaarka oo bishiiba mar aynu ku soo qaadan doonno barnaamijkeenna su-aalaha dun carbeed soo saaraha barnaamijku waa anigoo dun carbeeda halkan joogno magaalada burco kamarada waxa duuya cabdiquru halkan hor taagannahay waa carwa dubay magaalada burco aad baan ni salaamay deeq aad baad mahadsantahay haye saax